السلام عليكم صاحبي soo dhawaada waa mar kale imtixaanaheennii YouTube 2020ka maanta muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa qaabkii aad muuqaalkaaga ugu horeeyay ama fiidiyowgaaga ugu horeeyay ugu soo upload gareyn karto channelkaaga maadaama haatan boqolkiiba 50 oo inoo diyaarsan yahay channelkeena maanta muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa qaabka aad muuqaalkaaga ugu horeeyay ugu soo upload gareyn karto channelkaaga waxaana jiro laba qaab oo aad muuqaaladaada ugu soo upload gareyn karto channelkaaga waliba adigoo isticmaalaya mobilkaaga labadaas qaab mid kamid ayaan jeclaan maanta inaan idinla wadaago waana qaabka ugu fudud ee ugu sahlan ee aad muuqaaladaada ugu soo upload gareyn karto channelkaaga si aad marka channelkaaga ugu soo upload gareyso muuqaalkaaga ugu horeeyay waana hubaa qaabkan inaad wada taqaanaan waa adigoo isticmaalaya applicationka YouTube-ka ee aad ka daawato muuqaalada ku jira YouTube wuxuu awood ku siinayaa in aad muuqaaladaada haddaad lahayd channel ugu soo upload gareysato adigoo isticmaalaya waliba mobilkaaga si aan marka muuqaalkeena ugu horeeyay ugu soo upload gareyno channelkeena waxaad u baahan tahay kaliya inaad soo furto applicationka YouTube sida tan ayuu u soo furmaa qof walba ayaa yaqaana si aad marka muuqaalkaaga ugu horeeyay ugu soo upload gareyso channelkaaga waxaad kaliya u baahan tahay qaybtan ugu sareysa waxaad ka arkaysaa calaamadda kaamirada oo kale kaliya waxaad u baahan tahay inaad halkaas taabato kadib meel sida tan oo kale ayuu ku soo gudbin doonaa marka waxaad ka arkaysaa halkan inuu nasinayo option aad u fara badan tan ugu horeysa waxay tahay record haatan aad channelkaagii muuqaalkii ugu horeeyay record gareyn kartaa adigoo isticmaalaya applicationkan YouTube haddii aad record taabato wuxuu bilaabi doonaa inuu muuqaalkaagii haatan uu ku record gareeyo adigoo isticmaalaya kaamirada mobilkaaga halkan ku xigtana waxay tahay inaad haatan geli karto live adigoo markaas channelkaaga uga soo muuqan doona qaab live ahaana qaybtan ugu hooseysan wuxuu kuu tusi doonaa muuqaaladii ku jiray mobilkaaga dhammaan muuqaaladii ku jiray ayuu kuu tusaa marka waxaad u baahan tahay inaad halkan ka doorato muuqaalkii aad rabtay inaad channelkaaga ku upload gareyso tusaale aniga haatan muuqaal tijaab ahaan ayaan soo diyaarsaday muuqaalkaas ayaan dooran doonaa sidoo kalena qaabka aad muuqaalo aad adiga leedahay ugu samaysan karta mobilkaaga insha Allah tacaala koorsada ku xigta ayaan jeclahay inaan idinku soo diyaariyo koorsa dhameystiran waliba applicationada ugu fiican xagga muuqaal samaynta ayaan jeclahay inaan ku xijiyo markii aan dhameeyo sida loo sameeyo YouTube haddaba meel noocan oo kale ayuu ku soo gudbin doonaa marka qaybtan ugu sareysa wuxuu ku tusayaa sharcigii koob ahaa ee ku saabsan carruurta ayuu kugu sheegayaa waxaabii lagaa baahnaa ayuu kugu sheegayaa haddaba marka muuqaalkii aad rabtay inaad upload gareyso halkan ayaad kasii xaqiijin kartaa adigoo halkan belay dhahay haddii aan belay dhaho waa kaas muuqaalkii sida tan ayuu egyahay marka waxaad samaynaysaa inaad hoos soo degto waxyaabaan kale muhiim maahan haddii aan hoos soo degno qaybtan hoose ayaan iman doonaa waxaad ka arkaysaa halkan meel ay qoran tahay title description privacy iyo location qaybtan ugu horeysa title waxaad qori doontaa ciwaanka muuqaalkaaga tusaale muuqaalkaaga ciwaan ayaad u bixi doontaa wuxuu doona ha ahaado sidoo halkan description haddii aad imaado waxaad ku qori doontaa halkan waxyaabo kooban oo ku saabsiisan muuqaalkaaga ama linkis wixii aad doonto ayaad halkan dhigi kartaa sidoo kale halkan privacy qoran tahay haddii aad korkeeda taabato wuxuu ku siinayaa 3 option wuxuu kaliya muuqaalkaaga ma hadda ayaa doonaysaa inaad public ka dhigato si markaas qof walba oo YouTube-ka daawado si uu u arko amaba unlisted ayaad ka dhigi kartaa taasoo macnaheedu tahay kaliya qofkii aad linkigii muuqaalkaaga u dirto ayaa muuqaalkaas daawan kara sidoo kale waxaad kaloo awood u leedahay inaad private ka dhigato taasoo macnaheedu tahay kaliya ayaa muuqaalkan arki kara qof kale ma arki karo YouTube channelkaagana kama soo muuqan doono muuqaalkan aniga tan waxaan doonayaa inaan public ka dhigo public ayaan doortay sidoo kale halkan hoose location qoran tahay waxaad samayn kartaa goobta aad joogto ama meesha aad joogto ama wadanka aad joogto ayaad dhihi kartaa muuqaalkan waxaa laga soo upload gareeyay wadankaas si aad marka wadankii aad rabto u doorato ama magaaladii aad doonto u doorato balaaskaas ayaad tegaysaa kadib halkan wuxuu ku leeyahay marka search place ayuu ku leeyahay tusaale aniga haatan Muqdisho ayaan joogaa halkan aan Muqdisho ku qoray sidoo halkan waxyaabo aad u fara badan uu ku saari doonaa Muqdisho University waxyaabahaas oo dhan uu ku saari doonaa aniga waxaan u baahnaa kaliya Muqdisho ayaan u baahnaa korkeeda ayaan taaban doonaa kadib halkaas waxaad u jeedaa in ay ka soo muuqatay Muqdisho si marka muuqaalkaaga loogu upload gareeyo channelkaaga waxaad samaynaysaa calaamadan falaarta ee qaybta sare ku taala ayaad korkeeda taaban doontaa kadib si automatic muuqaalkaaga wuxuu bilaabi doonaa in lagu upload gareeyo channelkaaga waqti kooban ay qaadan doontaa hadduu muuqaalkaaga MB-giisa badnaa mar walbana waxay ku xiran tahay speedka internetkaaga xoogaa waqti ay qaadan doontaa marka waan sugaynaa inta uu nooga dhameynayo haddaba saad halkan ka arkaysa marka muuqaalkeeni waa diyaar in la daawado wuxuu ku leeyahay ready to watch haatan haddii aan beli dhaha muuqaalkii saad halkaas ka arkaysa haatan muuqaalkeeni waa inoo diyaar oo qof walba oo daawado YouTube-ka wuxuu awood u leeyahay muuqaalkeeni inuu daawado saad halkan ka arkayso tijaabo waa ciwaankii haddii aad calaamadan falaarta yariista furtana waxaad ka arki doontaa description-kii qaybtii location waxaad ka arkaysaa halkaas inaan Muqdisho soo dooranay qaybta ugu sareysa ayay ka soo muuqan doontaa waana qaabka aad channelkaaga muuqaalkii aad doonto ugu soo upload gareyn karto
weliba adigoo isticmaalaya mobilkaaga. waxaa kaloo jira qaab kale adigoo isticmaali kara browserkaaga kadib YouTube ayaad halkaas ku qoraysaa youtube.com ama waxaad booqan doontaa website-ka YouTube-ka. markaad website-ka YouTube-ka si tan soo booqato waxaad sameynaysaa marka qaabkii computerka inuu kuu soo muuqdo haddii aad rabto waxaad tegaysaa calaamadan saddex dhibcood ayaad tegaysaa kadib halkan waxaad ka dooranaysaa desktop site. balse qaabkan wuu ka duwan yahay qaabkii hore xoogaa yarna wuu ka adag yahay ama wuu ka fudud yahay qaabkii caadiga ah. marka waxaad sameynaysaa marka YouTube-ka sidan kuu soo muuqdo inaad zoom soo dhaado kadib waxaad sameynaysaa calaamadan balaaska ee iconka iyo leenkooda ku jirta ayaad korkeeda taaban doontaa kadib wuxuu ku leeyahay upload video aad kasii dooran doontaa kadib waxyaabahan ay ku tustaa marka waxaad kaliya sameynaysaa select file ayaad dooran doontaa hoose wuxuu ku leeyahay marka choose an action files ayaad kasii dooran doontaa si aad u aragto foldaradii ku jira mobilkaaga kadib waxaad sameynaysaa halkan video ayaad ka dooran doontaa wuxuu halkan kuu soo bandhigi doonaa marka muuqaaladii halkii ku jireen ama foldaradii ay ku jireen aniga haatan export ayaan dooranay maadaama aan muuqaalkan aan kusoo sameeyay KineMaster muuqaalka aad korkiisa taaban doontaa muuqaalkii aad rabtay kadib soo automatic wuxuu bilaabi doonaa marka inuu muuqaalkaagii ku upload gareeyo channelkaaga. marka waxaad ka arkaysaa halkan marka waxaad mari doontaa saddex step detail video elements iyo feasibility. qaybtan ugu horeysa detail waxaad ku qoran doontaa meesha ugu sareysa waxaad ku qoranaysaa title-kii wuxuu ku leeyahay required waa qasab inaad qorto description-kana waxaad ku qoran doontaa waxyaabihii ku saabsiisanaa muuqaalkaaga. sidoo kale thumbnail haddii aad u imaado halkan ayaad ka saaran kartaa haddii aad doonto thumbnail adigoo upload thumbnail dooranaya balse haatan haddii aan rabo inaan ku upload gareeyo wuxuu ku leeyahay marka hore ciwaankaaga faarfay gareysi markaas aad ugu soo upload gareysato thumbnail aad adiga leedahay. sidoo kale halkan playlist haddii aan u imaano waxaad awood u leedahay inaad playlist ku upload gareysto falaartan yariista ayaad furaysaa kadib dhammaan halkan wuxuu ku soo tixi doonaa marka playlist-yaashii ku sameysnaa. haatan waxaad u jeedaa inuu leeyahay playlist kuma sameysna insha Allah waan arki doonaa qaabka loo sameeyo playlist. qaybtan ugu hooseysa marka wuxuu ku tusayaa marka muuqaalkaaga caruur ma ku saabsiisan yahay mise kuma saabsiisana. haddii muuqaalkaaga caruur ku saabsiisan yahay yes ayaad leedahay haddii uusan ku saabsiisnayna no ayaad leedahay. kadib waxaad sameynaysaa halkan hoose next qoranta ayaad taaban doontaa marka wuxuu ku soo gudbin doonaa qaybtii elementska wuxuu ku leeyahay marka ku darso end screen iyo card. qaabka end screen-ka iyo cards loogu daro insha Allah muuqaal kale ayaan ku arki doonaa. marka hoose ayaad imaanaysaa next ayaad leedahay kadib qaybtan feasibility waxaad sameyn kartaa inaad muuqaalkaaga haddii aad rabto inaad public ka dhigato ama unlisted ka dhigato ama private ka dhigato halkan ayaad ka dooran kartaa haddii aad rabto public ayaad ka dhigi kartaa unlisted ayaad ka dhigi kartaa ama private midkii aad doonto ayaad ka dhigi kartaa. aniga haatan public ayaan ka dhigi kadib waxaan leeyahay publish ayaan leeyahay qaybtan hoose publish ayaan ka leeyahay kadib muuqaalkaaga si automatic wuxuu sameyn doonaa marka in lagu upload gareeyo. qaabka labaadna waa qaabkan adigoo isticmaalaya mobilkaaga aad ugu soo upload gareyn karto muuqaaladaada. insha Allah taala maanta muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay waa inoo muuqaalo kale waa aniga Cusmaan oo idin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.